dowladda Cameroon ayaa bilowday hawlaha ballaaran oo ay ku baadi goobayso 70 caruur ah oo laga qafaashay iskuul ku yaala qayb kamid ah dalkaasi. Rag hubeysan ayaa caruurtan ka qafaashay iskuul ku yaala Barninda ee waqooyi dalkaasi. Ardayda badbaaday ayaa ka hadashay qaabka ay kooxdu afduubka u geysteen oo baareen iskuulka oo ay ka xusheen ilmaha ay qafaashteen. Dowladda Cameroon ayaa afduubkaasi ku eedeysay jabhadda doonaysa in gobolka Ingiriiska looga ee dalkaasi uu ka go'o dalka intiisa kale. Jabhadani ayaa beenisay in afduubka iyadu geysatay. Baraha bulshada ee dalka Cameroon ayaa waxa la faafiyay muuqaal la rumaysan yahay in mid ka mid ah afduubayaasha uu caruurta ka duubay. Waxay caruurtu ku dhawaaqayaan waxa laga watay iskuulka wiilasha ee amba ma ogi halka aan ku suganahay ayaa caruurta la afduubtay ay ku dhawaaqayeen. Kooxaha gooni u goosadka ayaa sanadkan weerarada ay ka geystaan gobolkaasi oo ay shacabku dowladda ku eedeeyaan inay sax u qaadato. Waa Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab, Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.